hayaanka cilmiga aadanaha ayaa kolba soo marayay heer qarniyo iyo kumanaan sano kale ayaa geedigaas cilmi u ahaa mid maalinba soo xalinayay caqabadaha nololeed ee dadku ku nool yihiin xilli kasta. qarnigan 12aad aqoonta aadanaha gaar ahaan cilmiga saynisku waxa uu kulaalayaa hawada sare. cilmiga saadaasha hawada waa mid ka mid ah guulaha sifayn kara halka maanta uu gaarsiisan yahay cilmiga iyo ilhaaminta Ilaahay uu u fududeeyay aadanaha. haddaba maanta waxaan ka hadlaynaa qayb ka mid ah cilmiga meteorologiga ee saadaasha hawada oo ah aqoonta faalaysa isbeddelka cimilada, roobka, dabaysha, kulaylka, qabowga, abaaraha iyo wixii la mid ah. cilmigaasi waxa uu sahlay in daruur la unko, sidaasina uu ku doo roob macmala. waxa laga yaabaa intaasi dad badan ay la noqoto wax aan dhici karin ama mala awaal ah, hase ahaatee waa arrin dhab ah oo soo bilaabatay sanadkii 1940 waxaana loo yaqaanaa cloud seeding oo ah in daruur la beero ama la abuuro si roob uu u da'o. caalimka reer Mareykan ee ku takhasusay cilmiga chemistry-ga ee lagu magacaabo Vincent Schiver ayaa markii ugu horeysay sameeyay cloud seeding. wixii ka dambeeyay cilmigan waxa uu noqday mid si weyn looga faa'iideysto. si aad u fahamto waxaan ka hadlayno, marka hore aan kaaga dhaco waxa uu yahay cloud seeding. daruuraha waa uumiyaha biyaha, waa uu kordhaa oo qabooba kadibna wuu isqabsadaa ama waa uu isku dhegaa si daruuraha biyo u keenaan. waxa hawada lagu sii daayaa walxo kiimikooyin ah oo ay ka mid yihiin cusbada, baraf qalalan, dry ice ama silver chloride oo ah dhammaan kiimikooyin cusba ah. walxahaas yaryar ee hawada heehaabaya markay isqabsadaan maadooyinkan cusbada ah, daruurtii ayaa cuslaata kadib sidaa ku sii daaya biyo. waxay weli su'aal ka taagan tahay roobkan sidaa ku yimaada ma waxa uu leeyahay waxtarka roobka caadiga ah? waa jawaab weli ku maqan saynisyahanada oo laga sugayo. ujeedooyinka loo sameeyay hannaanka cloud seeding-ka inta badan dalalka barnaamijkan sameeya waxay ka hortagaan biyo la'aanta iyo abaaraha. tusaale ahaan, dawladda isutaga Imaaraadka Carabta oo dhulkeedu uu yahay mid qalalan waxay isticmaashaa hannaanka cloud seeding si ay biyo badan u hesho. in ka badan 400 oo mashruuc oo cloud seeding-ka ah ayaa ka socda dalkaasi. dawladda Shiinaha waxay adeegsatay hannaanka cloud seeding sanadkii 2008 oo Beijing ay martigelisay ciyaaraha Olombikada si roob macmal ah uu u soo da'o. waxay hawada sare u ganeen ku dhawaad 2,000 oo gantaal oo xambaarsan kiimikooyinka lagu sameeyo roobka macmalka ah. hannaanka cloud seeding-ka kaliya looma adeegsado in roob lagu manaafacadsado lagu keeno oo kaliya, sidoo kale dhanka dagaalka ayaa loo adeegsadaa. Mareykanka markii uu socday dagaalkii Vietnam wuxuu u sameeyay roob macmal ah si daadadka ay ugu fatahaan qaybaha ay ku sugan yihiin ciidamada Vietnam ee uu dagaalka kula jiray. sanadkii 1977 shir ay isugu yimaadeen dalal badan ayaa lagu mamnuucay in cloud seeding-ka ama roobka macmalka ah loo adeegsado dagaalada. haddaba garanay in daruur la beero si uu u soo da'o roob ma laga yaabaa in daruurta qudheeda la xado ama la leexsado. aqoon-yahanada cilmigan ku xeel dheer waxay leeyihiin waa la xadaa roobka, horeyna way u dhacday in roob la leexsado iyadoo la adeegsanayo hannaan la mid ah kan daruur beerista ama cloud seeding. sanadkii 2018 dawladda Iiraan waxay Israa'iil ku eedeysay inay kor istaagtay roobkii iyada u di'i lahaa. sidoo kale Hindiya iyo Shiinaha ayaa murankaas la mid ah ka dhex abuurmay. gobolada dalka Mareykanka ayaa sidoo kale xatooyada roobka muran la xiriira gorodda hore iskula galay.